Audio Jungle. waxaa maanta jaamacadda Joobka ee xarunteeda magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay bandhig dhaqameed loogu magac daray Asbuuca Dhaqanka Jaamacadda Joobka. Bandhig dhaqameedkan oo ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay socdayna muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka soo qayb galay Akademiyadda Fanka iyo Suugaanta, Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare, mas'uuliyiin ka socotay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha qaybta arrimaha bulshada, abwaano, odayaal dhaqameed, waalidiin, culumaaddin iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay bandhig dhaqameedkan ayaa waxa ay si isku mid ah kaga sheekeeyeen dhaqankii soo jireenka ahaa ee ay Soomaalidu hidaha u lahayd, isla markaana waxay jiilka hadda soo kacay kula dardaarmeen raadraaca dhaqankeena Soomaaliyeed. dhaqanka ummad marka haddii la rabo in la fasahaadiyo waxaa laga soo galaa dhaqankeeda. meeshii maradii ugu dheganayd nin walbaaba dhiiqadiisu ku tuuranaya ilaa waxba la arki waayo, muraayadii la isku fiirinayay waa dhaqanka. waxaa la isku arkaayo ummad isku aragtaa waa dhaqanka. haddii dhaqankaagu la fasahaadiyo cid walbaaba waxay noqonaysaa inay wax kugu darsato. dhaqankeena iyo hidaheena cuntada aan cunaa caafimaad lahayd sa aaminsanahay aniga. waxaan cuni jirnay cunto fiican oo beero ka soo goday, waxaan cuni jirnay qudaar badan oo beero ka soo goday, waxaan cabi jirnay caano fiican oo nadiif ah oo xoolaheena iyo arkeena laga lisaayo, waxaan cuni jirnay beeraha dalagyada ka soo go'ay kala duwan, badarka, haruurka, masagada, waxaan leeyahay galeyda, salmukada, digirta iyo wixii la mid ah. intuba hadda dhaqaatiirtu waana lagu taliyaan haddaa ogtiin iyo haddaa ogeynbo. cunaa la yidhaha qofka jirado jiradiisa la bixi waayo, cunaa la yidhaha waxyaabaha qofka leh ee kolestaroolka iyo qashinka oo dhan la dagaalo. qiyam dhaqameed baa jira aan leenahay. qiyam dhaqameedkaas oo waa qiyam fara badan baan leenahay oo ummada uga duwanahay ay ka mid tahay ixtiraamka, isqadarinta, xawahay wada noolaashaha, isdhaxgalka, isu soo dhaweynta iyo xawahay karamka, deeqsi, waxaas oo dhan waa qiyam dhaqameed aan leenahay weey. kuwaasna waxaa loo baahan yahay inaan ka barano dadkeena ku abaabinayo. dhanka kale, ardayda jaamacadda Joobka ayaa goobta munaasabadda waxa ay ku soo bandhigeen riwaayado iyo suugaan ka turjumaya dhaqanka Soomaaliyeed sida dhaanto, saar, guurow iyo sidoo kale dhammaan cuntooyinkii Soomaalidu ay dhaqan u lahaan jirtay. ugu dambeyn, xafladan lagu sagootinayay Asbuuca Dhaqanka Jaamacadda Joobka oo si qurux badan ku soo idlaatay ayaa waxaa khudbad si weyn dhaqanka u hogal tusaaleynaysa ku soo xiray gudoomiyaha guud ee Jaamacadda Joobka, Professor Cabdicasiis Macalin Caageen Xaaji Cabdisamed. bulsho ay leedahay runtii dhaqanka Soomaalida ay leedahay waa dhaqan intiisa badan runtii islaamka aanan ka hor imaanaynin. runtii waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa astaan dadka iyo dalka ay leeyihiin. runtii dhaqanka waa dareemaysaa, dhaqankeena waxa uu leeyahay xushmad iyo dhiirigelin ayuu leeyahay. haddii ay noqon lahayd qaabkii waxaan ku ihahday yani inta badan dadka waxayba dhahaanba intuusan islaamka imaanin ka hor dhaqanka Soomaaliga wuxuu ahay dhaqan aad iyo aad u wanaagsan oo ahay. taasaa marka waxay fududaysay islaamkii marka uu yimid geeska Afrika, yani dadkii ugu horeeyay qaatay inay Soomaalida ay noqdeen, laana maxaa yeelay markii horeba dhaqankooda ayaa wanaagsanay. markii arkeen dhaqanka wanaagsan oo diintiina haddana runtii way u fududaateen hore ay ka qaataan. Axmed Maxamed Faarax, warbaahinta Ras Media, magaalada Muqdisho.